xaflad ballaaran oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Helsinki iyadoo ay soo agaasintay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Finland waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo muujinaya qiiradooda wadaninimo ee ku aadan in dalka Soomaaliya uu haatan ka baxay kumeel gaar isagoo yeeshay dowladda dhexe Soomaaliyeed haddaba ila daawada xafladaasi sida u dhacday iyo sidii ay uga soo qayb galeen dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Finland aad ba u mahadsantihiin ajiibida aad ajiibteen casuumaadaas aan idin fiidinay annagoo ah ururka Somali Liito ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland oo soo abaabushay munaasabadan taariikhiga ah oo aan ku taageerayno isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay waddankeennii hooyo Soomaaliya sax u soo doortay oo cadaaladii iyo amaanadii loo dhibay gutay qof saxana soo dooray baarlamaanka geeyay odayaashaas waa u mahad celinaya waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed waa inay xasuusataa baal dahab ayaana bulshada uga jirtaan mustaqbalkana xasuus gaar ah ayaana xasuusan doonaa kasii bariyaan madaxweynaha cusub baan leeyahay waxaan leeyahay waxaa laga baahanyaa maanta cadaalad iyo hoggaan karti leh waxaan u maleynayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed waxay wada doonayaan wasiir iyo ra'iisul wasaare wada doonayaan ma gaarsiin kartid ra'iisul wasaare iyo sagama wada siin kartid waxaan lagu gaarsiin kartaa waa cadaalad iyo hoggaan wanaagsan taasna madaxweynaha cusub ayaan leeyahay waxaan Sheekh Shariif oo waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed anigoo ku hadlay magaca haweenka Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ka joogaan sidoo kale anigoo ku hadlay magaca haweenka Soomaaliyeed ee samafalka u sameeya dalkooda iyo dadkooda gaar ahaan magaca haweenka Soomaaliyeed ee Finland waxaan salaamayaa soona dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Ismaan Jawaari waxaan soo qaadanaa hayoon ku qanacsanahay xasan aqoonta hadayna hadnoo ku tahay qareeb xafladan taageerada ah oo ay soo qabanqaabiyeen dadweyne aad u fara badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan ururka midnimada Soomaaliyeed ee Finland ayaa ahayd mid jawi wanaagsan ku soo idlaatay iyadoo aad ka dheehan karto dadweynaha halkaasi isugu yimid kuwa ku faraxsan dowladnimada Soomaaliyeed Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Helsinki Finland